waxay kaga dhacday xagan garabka dabadiisa marka waxba ma yeelin inay in yar uu meesha yara bartay mooyee wax kale xabada wallahi lama garanayo cid riday marka markiina dabada umaana soo yaacin sababtoo waxaan ka baqanay inay anagana nagu dhacdo marka habeenkii markii ay ahayd 12 daqiiqo ay arinkaasi nagu dhacay daawadayaal gurigan hadda aan kala soo hadlaya waa guriga Cabdiqaadir oo ah gudoomiyaha suuqa waaheen saddex xabado ayaa daaqadan ku dhacay markay taariikhdu ahayd 15 bishan abaaro labadii habeenimo waxaan warays la yeelanay hoodo ah curada u dhalay Cabdiqaadir waxaana ka warantay qaabka wax u dhaceen magacaygu waa hoodo Cabdiqaadir Xuseen waxaana nahay carruurta inta joogtayeen u weynahay marka horta alxamdulillah arin yar baa maalin dhaweyd nagu dhacday waxa ciid wax nagaga waxay ahayd 15 July abaar labadii habeenimo 15 daqiiqo bay ahayd alxamdulillah cid ay wax ku soo gaadhay male mid soo qabowday baa inankayga ku yara dhacday waxay kaga dhacday xagan garabka dabadiisa marka waxba ma yeelin inay in yar uu meesha yara bartay mooyee wax kale xabada wallahi lama garanayo cid riday marka markiina dabada umaana soo yaacin sababtoo waxaan ka baqanay inay anagana nagu dhacdo marka habeenkii markii ay ahayd 12 daqiiqo ay arinkaasi nagu dhacay kadib waxaan wacnay taliska guud ee ciidanka alxamdulillah markii wayna soo gaadhay waqti fiican oo inagu soo gaadheen oo inoo yimaadeen si fiican oo inoo shaqeeyeen marka cid wax ku waxyeelowdayna haba yaraatee ma jirto saamaynta qudheena naga hadhay waxa weeye carruurtii weli saasaysa oo habeenkii naga seexan sidii aabahay waa gudoomiyaha suuqa waaheen waana mas'uulka suuqa sidoo kalena waa aabahay waa nin mas'uula yacni cid ay haystaan oo amana tuhunsan yahay ma jirto oo weligii oo biina lagama dhigin saldhig iskabada in la geeyo maxkamada marka reerka aan ka soo jeednayna cid weli cid xabad wax ku dishay ma jirto haba yaraatee ma jirto marka sidaas bay arintu u dhacday halkay xabaduhuna saddex xabad bay haayeen xagan bay ku dhaceen daaqada wariga halkaasay ku dhaceen saddex xagan ay ku dhaceen saddex xabadoodba dad bay halaagi gaadheen oo horta alxamdulillah cid waxba nagaga ma noqon laakiinse saddex xabadood sida ugu dhacay way adagtay in laga badbaado marka alxamdulillah gudahana waxa jiifay saddex nin adeerkay iyo in adeerkay iyo walaalkay marka mar tusi kartaa qaybta gudaha iyo qaabka wax u dhaceen halka xabadu ku dhaceen ha soo socdo waan idin tusayaa marka horta waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka booliska iyagu markiiba oo na soo gaadhay marka muxuu ahay toole arinkan waa arin dil oo badheera waxaana rajay hadda baaritaan baa lagu jiraa amniga dalka oo dhan baa baaritaanka wada arintanna waa arin dalka ku cusub oo hore u dhicin waxaan rajaynayaa insha Allah inay inta u dhimaana dhameystiraan qofkaana insha Allah la soo qabto ciduu doonaba ha noqdee marka khayr baan rajaynayaa insha Allah marka markii dabada aad u baxdeen ma aqoonsatay gaarigii iyo dadkii ilma may gaarigu muxuu ahaa gaariga markii ma arkin markii dhicitaanka dhacday isku soo baxnay iyo wax isku xigtay gaariga xugugufti may halka loo aanin karo may aabahay weligii qof ismay qabsan inuu isagu dadka heshiisiyo dadka dhex gala mooyaane ma jirto maanta qof aabahay wax ka tabanaya haba yaraatee ma jirto qoyskiina oo dhan inta guriga ku degantihiin ma qoyskii guriga wuxuu ku degan intuu dhalay iyo adeerkayna adeerkiiba nala jooga marka haba yaraatee cid wax ka tabanaysa aabahay ma jirto cid kale qoyska joogtana cid wax ku haysata ma jirto marka ma aqoonsataan baabuurkii marka dabada u baxdeen may weli ma ana aqoonsan laakiin salaamaha amniga wada shaqadii iyagaana insha Allah rajaynaa inay aqoonsadaan ay soo saaraan may waxbana lama wadaagina baaritaan bay wadaan hay'adaha ammaanka iyo ciidanka booliska ayaa falkan baaritaan ku wada Cabdiraxmaan Erdogan Horyaal TV Hargeysa